السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركلة يا برنامج كيني دعوين كادون كي عويس كنبة تي في. برنامج كلا واحد اللي سعتيانو محيدين محمد عبد الله هي برنامج كينا سد عدد عيد بوحن كفرنا هيس كم إذا هيسها مركز أي كله قيام فنانين الصوماليات وحيد السوق بنا يا هيس أي كله قينا ينسوى ذا شيء كوحدة هديجها جيس كا سومالي لان أو أفكيجو قلمتهid heestaas ayaynu soo daawan doonaa kadibna waxaan isku soo laaban doonaa barnaamijkeena caweyska iyo dhacdooyinka daawasho haboon afkayga oo qolo ma tihid qabiil iyo reer ma tihid qof gaar ku leeyahay ma jiro dadkaaga qaybsamo qoloba qolo diidantay adigu waxa tahay afkura afkayga oo qaran jiraatay Jabuuti qiimahaaga weeye jigjiga quruxdaada weeye gaarisi qaydkaaga weeye muqdisho qoridaadi weeye hargeysa qaamuuskaaga weeye boorama qalinkaaga weeye boosaaso qiyaastaada weeye afkayga oo qaran jiraatay afkaygo qolomatid qabiili iyo reer matid afkaygo qolomati qabiili iyo reer matid qofkaar kulehi ma jiro oo ma jiro qofkaar kulehi ma jiro qofkaar kulehi ma jiro oo ma jiro qofkaar kulehi ma jiro afkaygo qolomatid qabiili iyo reer matid afkaygo qolomati qabiili iyo reer matid qofkaar kulehi ma jiro ma jiro qofkaar kulehi ma jiro qofkaar kulehi ma jiro ma jiro qofkaar kulehi ma jiro dadkaaga qaybsamo qoloba qolo diidantee dadkaaga qaybsamo qoloba qolo diidantee adigu waxa tahay afqura 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 dadkaaga qaybsamo qoloba qolo diidantee dadkaaga qaybsamo qoloba qolo diidantee adigu waxa tahay afqura 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 adduunkiyo qaarada astaan koomu tahay qiimaha soomaalinimo ayaad kuwadiisa tahay ayaad kuwadiisa tahay afkaygo ayaad kuwadiisa tahay afkaygo adduunkiyo qaarada astaan baad koomu tahay qiimaha soomaalinimo ayaad kuwadiisa tahay ayaad kuwadiisa tahay afkaygo ayaad kuwadiisa tahay afkaygo afkaygo qaran jira tahay afkaygo qaali baa tahay afkaygo qaran jira tahay afkaygo qaali baa tahay aniga waxa tahay qudayda aniga waxa tahay qudayda aniga waxa tahay qudayda aniga waxa tahay qudayda afkaygo aniga waxa tahay qudayda afkaygo qaran jira tahay
jabuuti qiimahaaga weeye haa jigjiga quruxdaada weeye gaarisa qaydkaaga weeye muqdisho qoridaada weeye hargeysa qaamuskaaga weeye warama qalinkaada weeye hoostaasa qiyaastaada weeye afkaygo 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 aniga waxaa tahay qudhayda afkaygo quusan noqon kolkay isqardoofayaan afkaygo quusan noqon kolkay isqardoofayaan shantii qayb kuu lahayd shantii qayb kuu lahayd haa shantii qayb kuu lahayd oo shantii qayb kuu lahayd afkaygo quusan noqon kolkay isqardoofayaan afkaygo quusan noqon kolkay isqardoofayaan shantii qayb kuu lahayd shantii qayb kuu lahayd haa shantii qayb kuu lahayd shantii qayb kuu lahayd qeyrkood baa kala dilo reer bay suqursadane qeyrkood baa kala dilo reer bay suqursadane hamoodin inaad qabyowday qeyrkood baa kala dilo reer bay suqursadane qeyrkood baa kala dilo reer bay suqursadane hamoodin inaad qabyowday afkaygo qastiga abuurtee allana qalbaadu ka leedaho qorshiyo nolol baad hagtaaye dunida kuma tihid qaxooti afkaygo dunida kuma tihid qaxooti afkaygo qastiga abuurtee allana qalbaadu ka leedaho qorshiyo nolol baad hagtaaye dunida kuma tihid qaxooti afkaygo dunida kuma tihid qaxooti afkaygo afkaygo qaran jira tahay afkaygo qaali baa tahay afkaygo qaran jira tahay afkaygo qaali baa tahay aniga waxaa tahay qudhayda aniga waxaa tahay qudhayda aniga waxaa tahay qudhayda aniga waxaa tahay qudhayda afkaygo aniga waxaa tahay qudhayda afkaygo qaran jira tahay jabuuti qiimahaaga weeye haa jigjiga quruxdaada weeye gaarisa qaydkaaga weeye muqdisho qoridaada weeye hargeysa qaamuskaaga weeye warama qalinkaada weeye hoostaasa qiyaastaada weeye afkaygo aniga waxaa tahay qudhayda intaa markaynu kaga soo naabanno afkaygow qoloma tihid dhacdada koowaad ee barnaamijkeena waxay noqonaysaa ma ogtahay mise ma la socotaa in maalin kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala uu keeno ay wejigaaga ka dhintaan 1 milyan oo unugyadaas oo loo yaqaano scrobka waa la yaab
dabcan dadku waxay dhahaan inta badan maalinba maalinta ka dambaysa qabrigan u sii dhawaanayna la soco sidoo kale inay maalinkii kasta ilaahay keeno wejigaaga ay ka baxaan 1 milyan oo unug oo ay dhintaan si aad ugu sii dhawaato gabowga dabcan waxaad arkaysaa dadku inta badan inay iyagoo seeman oon ilka lahayn oo aan gar lahayn oo aan jirkooda dhisnayn ay soo dhashaan kadibna jirkooda tartiib ka soo adkaado ugu dambayntana warfaleeliye ay ka soo baxaan gadh hadday dumar tahayna inuu jirkii soo adkaado wejiga uu ku soo noqdo sidii qofka caadiga ah haddana waxay isu bedeshaa inuu jirkii soo dabdabco kadibna wejigu soo ururo waa dhacdo la yaab leh haddaba adduunka waxa inta badan hadda ay khubarada caafimaadku ku mashquulsan yihiin 1 milyan maxaa loo yaqaanaa saan hore idinku soo sheegay waxaa loo yaqaanaa scrub dhacdadaas marka inta kaga soo laabano dhacdadeena labaadna waxay noqonaysaa ee barnaamijkeena cawayska iyo nabad TV iyo dhacdooyinka adduunka wadanka ugu diinta badan ee diimaha kala duwan laga isticmaalo uguna dadka badan markii la yiraahdo ee laga reebo 2 wadan misana 1 wadan laga reebo ugu dadka badan waa kee talo waxa laga yaabaa kuwa fara badan oo idaawanaya inay garanayaan waa wadanka Hindiya waxa laga isticmaalaa in ka badan 100 diimo kala duwan iyo caqiidooyin kala duwan oo ugu xoog badan tahay diinta Islaamka iyo diinta Indoneesiga Buddhismka ayaa iyaduna la mid ah diimaha ugu xoog badan ee wadankaas Hindiya qaarkood waxay caabudaan dibida qaarkood waxay caabudaan darbiyada qaarkood waxay caabudaan sanamka 4 gacmood leh qaarkood waxay aaminaan oo caabudaan shaydaanka la gubo dabadeedna waranka lagu dhufto oo maalmaha ciida qaarkood waxay caabudaan maalinta ay ugu magac dareen maalinta iskalareynta oo caalamka inta badan hadda uu ka dhaxlay waxaad arkaysaa inuu hadda caan uu noqday iskalareynta ama maalinta biyuhu ay noqotay inay tahay maalin caan ah oo la aqoonsan yahay caalamka guud ahaanba haddaba Hindiya waxa ka jira diimo kala duwan iyo caqiido kala duwan taasoo cadeyn u ah inuu wadankaasi xataa caabudo kalarada rinjiyada la ismariyo wajiga la isku mariyo iyagoo markaas soo xidha dhar cadcad oo kalaradaas isla dhaca wala yaabka adduunka iyo dhacdooyinka adduunka ugu waaweyn ayay ka mid tahay barnaamijkeena cawayska waa tahay daawadayaal wali waxaan ku guda jiraa barnaamijkeena dhacdooyinka adduunka iyo cawayska nabad TV haddana aanu laabta dhanka farsamada iyo saaxiibkay Nuurdiin Fuad Nuurdiin Indhaase iyo heesi uu nagu soo qabtay heestii ay wada qaadeen gabadhii Hayruud iyo saaxiibkay Andhe Cabdiraxmaan Oday fanaanka fanaaninta heestaas baan soo qabanaya kadibna wayna soo laabanayna jecelahay adduunku nafku qalba ku eeganayso adaa qalbigiyo warkayga hanto ayniga raggan ku ishaartayo afkana kama dhigo ammaantaade adaan dunidaba kaliga aamine adaan ku jecelahay adduunku nafku qalba ku eeganayso adaa qalbigiyo warkayga hanto ayniga raggan ku ishaartayo afkana kama dhigo ammaantaade adaan dunidaba kaliga aamine ina
abidkay la jiro
وهاجاك هستا عدين انت كأنه من قبل واحد مدة رنتي إني سومالي قبل كتقان كوفر بدن وهذا سومالي كويسة أو فنانين شيء أنا السومالي إني كتقان السومالي طبعا وحالنا هاي لو قدنوا ومجوران لو قدنوا ولو قد معان دبدين السوتشي ذكر تعيد والبنا أي شيء إني كويس مثلا أي كواذ شو وهاجاك داوديال dhacdada ugu dambeysay barnaamijkeena aan ku soo qaadanayna cawayska iyo dhacdooyinka aynu jaleecno good talentiyada ugu caansan wadankaasi Faransiiska ama goobaha lagu soo bandhigo hibada iyo hal abuurka Ilaahay ugu deeqay bini aadanka runtii dadka bini aadanku kala duwan waana kala dhaqan duwan yihiin saaxiibka Nuurdiin baan u baaqaya si inoogu soo qabto dhacdadaas subhanallah wa wax la yaabo bisana la yiraahdo bini aadanka markuu koobaad ba Ilaahay inuu yiri wala qad karamna bini aadam Ilaahay waa karamay bini aadanku wuxuu ku karamay cilmi iyo aqoon iyo waliba kala duwanaan baahsan oo markaas bini aadanka ku jirta barnaamijkan guud ahaan ba intaas ayaan ku soo koobaya dhacdooyinka adduunka iyo cawayska nabad TV oo idin la socotinayaan Muxiidiin Maxamed Cabdullaahi waxa ay la qayb qaatay asxaab fara badan oo lagu soo koobi karo halka ugu horeeya saaxiibkay Cabdirasaaq Shiin oo ah haliga nabad TV oo markaas kaamirada iyo sawirka inoo hayay sidoo kale labadeeda garab waa Trick iyo Cabdixakiin sidoo kale waxaan ka maqnayn suxufiyadeena walaasheen mas'uul waxa barnaamijka idin soo qabanay dhacdooyinka idin soo hagaajiyay idin ku soo tafatiray idin soo qurxiyay waxa way saaxiibkay Nuurdiin dhanka farsamada waxaan ka maqnayn injineer Aqbal Maxamed barnaamijka dhacdooyinka cawayska nabad TV intaas ayaan ku saafmeeraynaa sayid nabad geliisma